baxay dhimashada allaha u naxariistay cabdinaasir muuse dahable oo ka tirsanaa hay'adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya oo habeenkii xalay gurigiisa magaalada Muqdisho laga helay meydkiisii xogo laga helay kooxaha caafimaadka ayaa tilmaamay in cabdinaasir la dilay oo dhaawacyo ay ka muuqdaan oogada sare jirkiisa inkastoo si rasmi ah loo cadeynin qaabka loo dilay booliska magaalada Muqdisho waxay soo qabteen 6 qof oo ay sheegeen inay yihiin la tuhunsanayaal dhimashada ninkani dhalinyarada ayaa dood adag waxay ka abuurtay baraha bulshada iyadoo dadku si cadale ay uga falceliyeen waxaana dad badan ay shaki galiyeen dhimashadiisa maareeyaha hay'adda duulista ee Somaliland Umar Sayid Cabdillaahi Aadan oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada qabteen wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland goobjoogna uu ka ahaa aabaha dhalay Cabdinaasir oo la yiraahdo Muuse Xaaji Xadi ayaa waxa uu sheegay in Cabdinaasir uu qoray warqad tala bixin ahayd oo uu kaga hadlay qaabka Somaliland iyo Soomaaliya ay wada maamuli karaan hawada iyadoo taasina ay sababtay in dhowr jeer arrintaasi su'aal ay ka weydiiyaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya sida uu maareeyuhu hadalka u dhigay Cabdinaasir wuxuu ahaa nin aqoon-yahan oo runtii beebaris qora sida hay'adda duulisaan aan war ku hayno wuxuu qoray beebar uu kaga hadlayo sida ugu fiican ee hawada loo wada maamuli karo beebarkaasoo uu kaga hadlayay sidii loo profit karin lahaa siyaasadda looga saari lahaa hawada wuxuu soo bandhigay madaxda hay'adda duulista Soomaaliya marar badan bay dib ugu yeedheen oo ay wax ka weydiiyeen beebarka uu qoray sidaan xogta ku hayno maalmihii ugu dambeeyay isaga iyo shaqaalihii kale reer Somaliland ee magaalada Muqdisho joogay waxay dareemayeen cagajuuleyn رئيس الوزراء حكومة فدرالك ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa hay'adaha amniga waxa uu faray in la soo qabto ragii dilka geystay isla markaasina lagu sameeyo baaritaano oo cadaaladda la hor keeno dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland waxa uu dhaxeeya muran dhanka maamulka hawada kadib markii xukuumadda Muqdisho ay hawada ka celisay diyaarad ay saarnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Itoobiya oo booqan lahaa Hargeysa 17kii bishii January ee sanadka markaasi kadib waxa soo baxay war kale oo sheegayay in khalkhal la geliyay diyaarada maraya hawada Soomaaliya arrintaasi oo keentay in labada dhinac ay isku tuurtuuraan Soomaaliya waxay maamulka hawada ay kala wareegtay hay'adda qaramada midoobay ee qaabilsan duulimaadyada ee magaceeda la yiraahdo ECAWA sanadkii 2019 waxaana qaar kamid ah shaqaalihii hay'adda uga shaqeynayay gegida diyaaradaha ee magaalada Hargeysa oo uu kamid ahaa Cabdinaasir Muuse Dahable ay u wareegeen magaalada Muqdisho isagoo ka shaqo galay hay'adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya ma jirin dhibaato xagga maamulka hawada wixii ka horeeyay bilowgii sanadkani khilaaf kasto u dhaxeeya Muqdisho iyo Hargeysa waxa uu salka ku hayay heshiiskii badda ee kala saxiixdeen Somaliland iyo Itoobiya kowdii bishii January ee sanadkani heshiiskaas oo dhigayay in Itoobiya la siiyo 20 kiiloomitir oo bada oo ay ka dhisato saldhig military iyo dekad ganacsi taasi bedelkeedana Itoobiya ay aqoonsato Somaliland heshiiskaasi ayaa dawladda Soomaaliya waxay ku tilmaantay mid baalmarsan shuruucda caalamiga oo xadgudub ku ah midnimada iyo wadajirkeeda